وسؤال دأويني دلك يا إسكالي النبضاتوني عن ضايع النظامك دولة لمنا شعر بالي بديو قدهبا دنشرها همي كانوا دقناتا وقلين بالي وقرين بالي دقناتا وقلين بالي النبضاتوني عن ضايع النظامك دولة لمنا شعر بالي بديو قدهبا دنشرها همي كانوا دقناتا وقلين بالي وقرين بالي دقناتا. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة كوبان oo guud mar ah oo la xiriirta siyaasadda soo kululaanaysa gobolkan geeska Afrika hadda ka jirta iyo waxa ka soo cusboonaaday oo awalba isagoo gobolkaanu ahaa gobol isha lagu hayo oo adduun weynaha oo dhan meesha uu ku yaal gobolkaanu darteed oo si dheeriya isha ugu hayo ama farahaba ugula jiro ayaa haddana xilliyadan dambe waxaa muuqata in maaragtay xiisado hor leh oo kuwii hore oo ka jiray sii kululaynaya inay ku soo kordheen marka gobolkan oo la oran karo Soomaaliya burbursanaanteeda iyo dayacnaanteeda iyo baylahdeeda ayaa qaybta ugu weyn ka ah inay soo jiidato indhaha adduunka iyo dawladaha danaynaya meesha ay ku taal muhiimadeeda darteed iyo wadanku dihinaanta uu dihin yahay iyo sida ay maaragtay loo haweysto loogu hunguriyoonayo yaan lagaaga hormarin inay dawladuhu is yiraahdaan cid walba saa u fakarto ama kuwa dariska la aha noqoto ama kuwa meel kale oo ka durugsan ka yimaada ha noqote marka awalba iyadoo iska ciirciiraysay Soomaaliya iyo gobolka siyaasadiisa nugul oo aan cagaha adag ku taagnayn oo dhan ayaa waxa aynu ognahay xasaradii ka taagnayd wadamada Itoobiya iyo Masar soo jireenka ahayd in ay wax ka soo cusboonaadeen waxaynu ognahay Soomaaliya dawladda federaalka ama xukuumadda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo kala daadsan oo aan wada jirin oo tala Soomaaliyeed oo meel wada taal ama meel wada socota ay si jirin oo dayacan tahay iyo dalalka dariska ah oo midiba mar damcayo inuu Soomaaliya qayb ka goosto iyo dalal kale oo iyaguna danaynaya oo ay Masar ka mid tahay shidadii ka haysatay iyada iyo Itoobiya biyaha Niilka inay isku dayayso Masarna inay xagga Soomaaliya fursad ka hesho oo ay Itoobiya culays ka soo saarto xagga Soomaaliya kaga timaado iyadoo Masartu ay xukuumadda federaalku u yeeranayso iyadoo aan xukuumadda federaalku hayn oo aysan gacanta ku hayn dalkii sidoo kalena maamuladii dawlad goboleedyada ahaa ee ka jiray wadankana ayaan muwaafaqo iyo wada socod iyo wada jir fiican la lahayn marka haddii ay arrintii noqotay wadankii inuu baylah yahay oo kala daadsan yahay oo dayacan yahay oo maamul isku haya oo si wada jira siyaasadiisa u jaheeyana uusan haysan gacan amni oo maaragtay midaynaysana uusan ku jirin oo aysan jirin taasuna
isku hay amni ahaanna uusan isugu xirnayn siyaasad ahaanna uusan isugu xirnayn arrimo bulsho iyo dhaqaale iyo dano loo fulinayo isugu xiranaya hadoo kalena aysan jirin iska baylahayo dhulka yaal wadankii markaas dawlad kastoo loo yeerto iyo dawlad kastoo dhinaca la saaraaba danaheeda ayay waxay u fushanaysaa iyadoon cidina kala gorgortamin dan Soomaaliyeed kalena gorgortami karin maxaa yeelay haddaadan gacantaada waxba ku jirin waxa aad haysato oo markaas aad adigu leedahay in lagugu maamulo lagugu arrinsho baad u sakaar waran tahay marka xitaa Masar haddii loo yeero iyo dawlad kale haddii loo yeeraba waxa aad ka doonaysid wadan waxa aad la gorgortami kadhaayo dana isweydaarsan kartaan markii gacantaada wax ku jiraan markii Ethiopia Soomaalidii iyo dhulkii Soomaaliyeed qaybo kamidii u yeerayaan ama la safan yihiin dawladda federaalku oo magac ahaanta u jirta meel ay xukunto iyo tala ay gacanta ku haysa aysan muuqan maxay ka qaban kartaa way su'aashu hadduu u yeero Masar hadduu u yeero Masar xagee ugu yeerayaa maxayse la fulinaysaa Masar wuxuu ugu yeerayaa wadankiisii oo asaguba uusan gacanta ku hayn laftigiisu xasanku isagoo madaxweynihii dawladda federaalka ah madaxweynaha dawladda federaalku magac buu madax ka yahay dal iyo dad gacanta kuma hayo marka waana la ogyahay Masarna waa ogta marka Ethiopia waa ogta dawlad kastoo kalena waa ogta marka haddaan madaxweynaha Soomaaliya hadduusan isu raadin maamuladii gobolada ka jiray dawlad goboleedyadii uusan isu raadin oo dawladdii federaalka ee dawladdii dhexe iyo dawlad goboleedyadii aanay lahayn wax muwaafaqo ah oo xataa heerkooduba ha hooseeye muwaafaqadaas asaaska iyo bayska ugu hooseeyaba ha la isku waafaqsanaadee kow iyo laba wax la isku waafaqsan yahay oo maaragtay ay ka wada jiraan oo isku aragti ka yihiin haddaan la helin muxuu markaa xasan ma asaga keligiisa isku dayay ajnabi intuu u yeerto inuu dardaro wax u suuroobi mayso waxa fiicnaan lahayd xasan inuu ku baraarugo wadanka keligii inuusan lahayn keligina inuusan xukumi karin keligina inuusan difaaci karin marka wadanku sidii meherada isagu leeyahay xasan inuu u fakara ma aha oo isagu maamulanayo iyo hadda qofku jeclaysto inuu maaragtay wax u dirsado sidaa ma aha wadanku wuxuu ka kooban yahay dhul ballaaran iyo dad ballaaran uu ka kooban yahay dhulkii iyo dadkiiba hadduu xiriir la lahayn ajnabiga uu u yeerayo xagee buu geynayaa midda labaadna sidee buu uga garhelayaa dawlad dhulka ay rabto inay qaadato dadkii deganaa u yeeranayaan xasanna ayaan hoos tegin oo xasan uusan gacanta ku hayn ammaankooda iyo siyaasadooda midna gacanta ku hayn sidee buu marka dawladdaa kale uga garheli karayaa dadkii meesha deganaa baaba noo yeeranayo na raba weeyaba dawlad kastaba saasay odhanaysa markii dadka meesha degan u yeertaan ama la saftaan ama u mudaaharaadaan isagana ma xasanka ahna ayaan waxba ka maqlayn oo ayaan tala ahaanna u hoos imaan ammaan ahaanna aysan u hoos imaan siyaasad ahaanna aysan u hoos imaan marka xasan hadduu ku fakero in uu keligi hadba meel u ordo oo dawladaha ajnabi u yeerto waxay noqonaysaa in loo arko dawladaha ajnabi oo u yeeranayo dana asagu wato inuu ku fushanayo maxaa yeelay walaalkaaga kale Soomaaliga ah oo wadankii kula leh oo dawlad goboleedyadii ah haddaada waxba weydiinayna damacdood inaad ku durduriso ku tumatid dee waa la iska kaa celinaya balaayo kastana waa lagu soo bahaysanaya wadankuna meeshu ka baxaya adigana sabab noqonaya marka siyaasadda hadda ka taagan gobolkan geeska Afrika sida ay wax yihiin siyaasadda xasan hadda ku dhaqmayo iyo sidoo ku socdo ma badbaadin karto mana badbaadin doonto wadanka Turkigu Soomaaliya isagoo danaynaya oo maaragtay meel istiraatiijiga u arka ayaa haddana wadamadan reer galbeedka Soomaaliya ku fadhiya wadanka Turkiga xorriyad badan Soomaaliya ugama ogola inuu dhaqdhaqaaq badan ka sameeyo ugama ogola
waxaa intaas uu heliya Ethiopia xiriir fiican buu leeyahay waan dawladda ballaaran oo weyn Turkigu marka xiriirada iyo danaha uu Ethiopia leeyahay Turkigu u baabi'in mayo Soomaaliya darteed oo laga ilaalinayo Soomaaliya oo laga ilaalinayo aan gacan badan ba inuu ku yeesho loo ogolayn u baabi'in mayo xiriirkiisa Ethiopia sidaa darteed garab saarida Turkiga Xasan Sheekh Maxamed wax ka bidayo ka doonayo Turkigu dhexdhexaad buu ka ahaanayaado waa niyad sami buu muujinayaa mooyaane talaabo ma qaadayo duruuftana u saamixmayso inuu talaabo ka qaado danihiisa uu ilaashanayaana u saamixmayaan inuu Soomaaliya talaabo la jirta ku dhaqaaqo marka Turki baana difaacay ciidamada Turki baa imaanay waxaas oo dhamma waa wax iska war away war hadal way sidaas darteed Soomaaliya khatarta ay ku jirto khatar dhab ah bay ku jirtaa Soomaaliya dal ahaan iyo dad ahaan iyo bad iyo bariba khatar dhab ay ku jirtaa marka khatarta maxay kaga bixi kartaa khatarta waxay kaga bixi kartaa maamulada Soomaaliya ka jira oo kan federaalku ugu horeeyo kuwa dawlad goboleedyadu ku xigaan in la isugu keeno wax siyaasad ah oo aragti siyaasadeed ah oo ay ka wada qayb gali karaan oo maamulkaas Soomaali diidka noqdo geesta u baxay mooyaane inta kale ay isku waafaqi karaan Soomaalinimo ahaan iyo wadan ahaan inta isla ogol wax ay isku waafaqi karaan oo bayso asaas ah in la helo asaaskaasna Xasan markaa ku difaaco dalka aragti ahaan iyo siyaasad ahaan soo halka ka duulay laakiin inuu kulli ku durduriyo oo kulli dhaafsan yahay hadba dal ku ordayo Xasan waxa weeye taladaas waa ay ka hoostay dalna ku badbaadin mayo sida ku difaaci mayo looguna hogaansami mayo wadankana keligi ma laha meherada asaga uu leeyahayna ma aha taladiisana wadanka keligi ma leh difaaciisana maartay keligi ma awoodo waxa la rabaa oo loo baahan yahay Xasan inuu siyaasadda dalka khatarta lagaga saarayo ama lagaga badbaadinayo khatar soo socota ama tuu ku sugan yahay ba lagaga saarayo siyaasaddaas inay noqoto siyaasad kulminaysa dawlad goboleedyadii iyo dawladii dhexe iyo shacabkii iyo ummadii oo dhan oo isku aragti wax walba isku aragti ha laga noqdo la oran mayo laakiin wax baysa oo dalka inta isla ogol Soomaalinimada iyo wadanka jiritaankiisa inta isla ogol iyo inuu hal wadan yahay inta isla ogol waxa isla ogoliyeen waa in lagu dul dhisaa aragti siyaasadeed oo lagu ilaalin karo wadankii Xasan taa waa inuu la yimaadaa waana inuu bedelaa dhammaan qaabka uu dhaqmayay waayada tan dambe oo dhan ama ilaa markii la doortayba slogankii aan waxba ka runoobin oo hadalka afka baarkiisa ahaado Soomaali heshiis adduunka la heshiisa Soomaali dhexdeedana heshiiska adduunka la heshiisa warkaas baaba'ay aan waxba ka jirin bal Soomaali heshiis oo adduunkana la heshiisa Xasan kama muuqatee waxa laga codsanayaa habeenimo maalin ummaddu u soo jeedinaysa anaguna aan u soo jeedinaynaa war Xasanow adiga khaladka wada wadankana waa lagu leeyahay adigu gaar uma lihid taladana waa lagu leeyahay adigu gaar uma lihid difaaca dalkana waa lagu leeyahay kaliya ma difaaci kartid u soo noqo xaqiiqada dalka kan iyo dadka kan ummadii lahayd ku soo celi talada gogol dhig u dhig gogoshaas dawlad goboleedyada oo dhan beesha caalamka cidii aydan maaragtay iswaafaqi karin oo aan hadda ku yeelayno kala aamin baxdeen bin aadamka kale la kaasho waxa tiraahdaa wada hadal siiya wax bays ah oo Soomaali ku kulansan tahay hal helo xataa goboladaas waqooyi oo maaragtay maamulka Soomaali diidka ah uu maaragtay horjoogaha ka yahay dadka u dhashay oo wax galka ah dad badan oo kamid ah looga yeeri kara kulanka wax Soomaalinimo iyo Soomaaliya kulminaya oo asaas ah oo bays ah oo la isku raaci karo waa in la helaa marka hore marka ka bacdi iyadoo la midaysan yahay dalkii la kaashanayo iyo dalkii la iska ilaalinayaba talada loo gudbi karaa sidaasaan marka baartu tahay sidaasaana lagama maarmaan ah وسؤال دعويني دلك يا إسكالي النبضاتوني عن ضايع النظامك دولة لمنا شعبالي بديو قدهبا دنجرها أمي كني دقناتا وقلين بالي